Assalaamu calaykum. Guur. Afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa marriage. Afka Carabiga zawj. Waa dhacdo ay ku midoobaan laba qof, inta ugu badan ninka iyo naagta, kuwaasi oo hadafkoodu yahay in nolol wanaagsan ay ku noolaadaan iyo inay iska caawiyaan waayaha nolosha. Barnaamijka waxaa idin socodsiin doona anigoo ah Cabdiladiif Maxamed Yuusuf. soo dhawaada asxaabta. Ilmaha markuu dunida ku soo biiro waxa ugu dhaqsiyaha badan ayaa waxay tahay in mudnaanta koowaad la siiyo caafimaadkiisa. baahidiisa ayaa ah inuu helo wax kasta oo muhiim ah. waalidiinta cusub ee la xiriirta xaaladdan ayaa ah Nanda iyo Kumari. waxay degan yihiin degmo ku taalo Kathmandu, Nepal. bilo kadib guurkoodii, Nanda iyo Kumari waxa uu dhashay wiil la yiraahdo Ramesh Kumar. wiilka yari wuxuu nolosha lamaanaha ku soo kordhiyay mowjado cusub oo farxad leh. lamaanaha saboolka ah ee horay ula dhacay dhaqaalahooda aasaasiga markii hore wax walba waxay u socdeen si wanaagsan. qoyska yar ayaa waxa uu ku noolaa maalmahoodii ugu wanaagsanaa kadib markii arrin aanan la filaynin ay dhacday. Nanda waxa uu caddaatay in run ahaantii wax un ka qaldan yihiin wiilkeeda. waqti yar kadib, maqaarkiisii wuxuu bilaabay inuu noqdo mid qalal, iskuna dhagan oo aakhirkii isu bedelay mid xanuun badan. markii hore waxay moodaysay inay tahay ficil celinta xasaasiyadeed, taasi oo ku bixi doonta maalmo yar gudahood, laakiin xaaladdu way sii xumaatay markii maqaarka uu bilaabay inuu daboolo jirka oo dhan. maqaarka waa la iska indho tiri karaa, laakiin astaamaha kale ee ku yaala ayaa ah kuwa aan loo adkeysan karin. wiilka yar ayaa ah mid mar walba xanuunsan, dhaqdhaqaaqa xubnihiisa ayaa xadidan, mana awoodo inuu soo saaro wax hadal ah. waalidiintiisa ayaa aad uga walwalay, waxayna ula carareen wiilkooda dhakhtarka ugu dhow ee ku yaala degmadooda. dhakhtarka ayaa la yaabay wiilka yar. horay uma uusan arag tan ka hor ilmo yar oo maqaar aad u adag leh, una eg taalada dhagaxa. isbeddelka maqaarka ayaa si weyn u muuqday, laakiin dhakhtarka ma ogeyn in cunuga uu ku dhacay mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan adduunka. muddo badan kadib, waxaa la ogaaday in Ramesh uusan kaliya lahayn muuqaal laga baqo, laakiin sidoo kale waxa uu ka daciifay difaaca jirkiisa. wuxuu la'aa xagga aragga iyo naafinimo dhanka maqalka ah. dhaqdhaqaaqiisa waa la xadiday, mana uusan awoodin inuu sameeyo qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada, xitaa ma uusan hadli karin. lamaanaha ayaa aad uga argagaxay dhibaatada soo food saartay, laakiin kama aysan quusan inay sii wadaan booqashada dhaqaatiirta ilaa Ramesh laga caawiyo. kadib baaritaano badan iyo booqashooyin isbitaal, wiilka yar waxaa laga helay Harlequin ichthyosis. waa cudur ku soo booditaan ah oo dhif iyo naadir ah oo laga helo hal qof 500,000 oo qofba. adkeynta maqaarka ee ku xiran caloosha waxay keenaysaa cunista iyo neefsashada oo adkaata, awoodda maqalka oo sii daciifaysa. dhaqdhaqaaqa xubnihiisa isku xidhan waa mid xadidan, isla markaana adimada oo sidoo kale la arki karo. dhammaan calaamadahaas iyo astaamahaas oo dhan, qofka wuxuu noqonayaa qof dadka kale ku tiirsan. iyada oo astaamaha dhammi ay isbarbar socdaan, waxaa hadda caddaatay inuu u baahan yahay daaweyn muddo dheer ah. daaweyntiisa ayaa noqotay mid aanan si fudud lagu heli karin. Nanda iyo Kumari waxay weli isku dayeen inay ku caawiyaan ilmahooda si kasta oo suuragal ah. dhanka kale, bulshada iyo dadka ku xeeran way kari waayeen inay aqbalaan ama u adkeystaan muuqaalka wiilka yar. karti xumadiisa ku hadlidda erayada ayaa ka sii dartay. bulsho ahaan waa wiil yar oo ay aad u yar yihiin dadka agdhow. waalidiintiisa waxay horay u sii wadeen raadinta fursadaha caafimaad iyo ka caawinta ilmaha yar jirkiisa iyo inuu ku sii dhex noolaado bulshada. waxay ahayd mid ka mid ah ducadoodii oo run ahaantii la aqbalay, iyo caawinaad si la yaab leh ku timid oo qofna weligiis uusan ka fikirin. galabgalbaha ka mid ah qoyska ayaa la ogeysiiyey in Joss Stone uu doonayo inuu soo booqdo. lamaanaha ayaa aad ula yaabay markii ay maqleen warka noocaas ah. waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay maqlaan fanaankaas. martisoor wanaagsan ayaa loo sameeyey sidii lagu soo dhaweyn lahaa martida ka soo martiday geeska ugu fog adduunka ee Mareykanka. Joss Stone ayaa kala kulantay mahadnaq aad u weyn lamaanaha, waxayna markaa ku dhawaaqday inay show ku qaban rabto Kathmandu, waxayna go'aansatay inay ku tabarucdo dhammaan lacagtii daaweyntiisa. sidaa daraaddeed, ururka Joss Stone Foundation wuxuu qaatay mas'uuliyadda ilaalinta, daryeelka iyo dhaqaalaha Ramesh iyo daaweyntiisa. ururka Joss Stone Foundation wuxuu run ahaantii qabtay shaqo cajiib ah, isagoo taageero u ahaa kuwa mudan. sheekada aan hadda ku sharaxay waxay caddeynaysaa in caafimaadku run ahaantii yahay mid qaali ah oo aan u qaadano si quman. caafimaadka run ahaantii waa mid aad u qiimo badan, weliba caafimaadka xagga jirka iyo maskaxda. sidaa daraaddeed, qof caafimaad qaba ayaa awood u leh inuu ku raaxaysto nuxurka nolosha oo dhan. wax walba oo hareeraheena ah waxay noqdaan wax aan fiicnayn oo aad dareemayso inaad hooseyso. fadlan u cun si wanaagsan, u hurud si wanaagsan, u jimacso si wanaagsan oo caafimaad leh, una noolaada mustaqbal wanaagsan. maxaa yeelay waxa aan haysanaa waa riyo oo ay dad badan qiimeeyeen ka hor inta aysan dhiman. waa naga intaa muuqaalkeena maanta.
waad ku mahadsantahay daawashadaada, laakiin inta aadan tagin ka hor iska hubi inaad subscribe saartay kanaalka oo aad gambaleelka ogeysiiska saaratay si ay marnaba kuu dhaafin sheekooyinka xiisaha leh ee sidan oo kale ah. Fadlan ha iloobin inaad like, comment sidoo kale la wadaagto sheekada asxaabtaada.